agaasimaha guud ee wasaaradda dib u dejinta Jamhuuriyadda Somaliland mudane Ali Bikalo ayaa maanta magaala madaxda gobolka Saaxil ee Berbera ka kala dilay raashin mucaawana oo la gaarsiinayo ilaa 750,000 oo qoys oo reer Somaliland ah oo ku dhaqan gobolada xeebaha ay dhawaanta ka dhaceen abaarihii baana. Ali Bikalo waxa uu tilmaamay in raashinkani uga mahadnaqayo hay'adda Bisha Cas ee Imaaraadka Carabta isagoo dhanka kalena u soo jeediyay wasaaraddiisa iyo waliba howlwadeennada kale ee Bisha Cas ee ka qayb qaadanaya qaybinta raashinkani iyo ciidamada ammaanka inay si habsami leh u qaybiyaan raashinkaasi. waxaana hadaladiisii ka mid ahaa aad xukuumad ahaan ugu mahadnaqaynaa hay'adda Imaaraadka Bisha Cas oo runtii gacan musaacado oo waafi ah na soo gaarsiisay. aad iyo aad baanu ka xukuumad ahaan ugu mahadnaqaynaa qaybin deeq raashin ah oo ka timi hay'adda Imaaraadka Bisha Cas. run ahaantii deeqdan raashinka ah waxay ku timi abaarihii oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo uu u jeediyay hay'ado badan. qaar ka mid ah mas'uuliyiinta hay'adda Bisha Cas ee Imaaraadka iyo waliba laamaha wasaaradda dib u dejinta ee magaalada Berbera ayaa iyaguna mahadnaq ballaaran u soo jeediyay xukuumadda Somaliland iyo waliba hay'adda Bisha Cas ee Imaaraadka Carabta. waa deeqdii ugu horeysay ee nooceeda oo ka dambeysay dalabkii baaqi uu madaxweynaha Somaliland u diray beesha caalamka xilli ay Somaliland soo gaareen abaarihii baana ee raxmaadka ee baynaga soo jabiyay. Cabdikariim Siciid Saalax, Home Cable TV, Berbera.